السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضيدا يولاalaha ku xiran channelka Bilaal Waane kusoo dhawaada mowduuc cusub mowduuca aan maanta ka hadli doono waxa uu diiradda saarayaa arday waliba waxaana kaga hadli doonaa 10 astaamood ee lagu garto ardayga wanaagsan kusoo dhawaada mowduucayna waxbarashadu waa wax adag abaalgudka ugu dambeeya wuxuu ogaanayaa inaad fursad u leedahay inaad saameyn ku yeelato nolosha dhalinyarada si kastaba ha noqotee arday kasta lama siman yahay macallimiinta intooda badani waxay kuu sheegi doonaan inaysan haysanin kuwa ugu cadcad laakiin runta waxay tahay in ardaygu leeyahay dabeecado gaar ah oo ka dhigaya arday fiican ardaygani waase waxa ay si dabiici ah u dabagalaan macallimiinta ardaydani waxa ay si dabiici ah u dabagalaan macallimiinta ardayda iyo maamulka iyo Allah inoo saamaxo waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 astaamood ee lagu garto ardayga wanaagsan waxaan ka bilaabayaa lambarka 1 waxay weydiiyaan su'aalo macallimiinta waxay mar waliba weydiiyaan su'aalo macallimiinta marka oo cashirka la sharaxayo mise marka oo cashirka uu dhamaado macallimiinta intooda badani waxay doonayaan inay ardayda su'aalo weydiiyaan marka aanay fahmin fikradaha la barayo xaqiiqdii waa sida kaliya ee macallinku ku og yahay in si dhab ahaantii cashirka loo fahmay ama fikradahaasi loo fahmay haddii aysan jirin wax su'aal ah oo la weydiiyo macallinka markaasi macallimiintu waxa ay inay u qaadanayaan inaad fahantay cashirka ama fikradahaasi ardayga wanaagsani kama baqo inay su'aalo weydiiyaan sababtoo ah waxay og yihiin in haddii aysan helin fikrad gaar ah waxay dhaawici kartaa marka dambe marka xirfadani la barayo su'aal weydiinta badanaa waxay faa'iido u leedahay fasalka guud ahaan sababtoo ah fursadaha waa haddii aad su'aalahan qabtid waxaa jiro arday kale oo su'aal la mid qaba balse cabsanayo maadaama su'aal aad weydiisay macallinka waxay adiga kuu saacidaysaa in su'aashii hadafkii aad ka lahayd aad gaartay ardayda walaalaha kalena ay u faa'iidaysteen qodobka 2 ardayga wanaagsan waxa uu qabtaa shaqo adag ardayga ugu fiicani ma ahan ardayga ugu caansan waxaa jira arday badan oo lagu barakeeyay sirdoonka dabiiciga hase yeeshee aysan haysanin is-edbinta si ay u xaqiijiyaan ama si ay u xajiyaan sirtaas macallimiintu waxay jecel yihiin ardayda doorta inay si adag u shaqeeyaan iyada oo aan loo eegaynin heerka sirta ardayda ugu adag ee shaqeeya waxay ugu dambeyntii noqon doonaan kuwa ugu guulaha badan noloshooda inaad noqoto shaqaale adag ee iskuulka macnaheedu waxa waaye in aad dhamaysay shaqooyinka waqtiga ku habboon adiga oo adeegsanaya dadaalkaaga aqoontaada iyo waxbarashadaada ugu dambayne ee kasto dadaalkaada adiga oo adeegsanayo dadaalkaaga iyo aqoontaada ugu badan ee shaqo kasta weydiiso caawinaad dheeri ah marka aad u baahan tahay inaad waqti ku qaadatid inaad barato imtixaanada iyo su'aalaha iyo garashada daciifinta iyo raadinta siyaabo kale oo lagu hagaajiyo marka ardayga wanaagsani mar waliba howlihiisu dib uma dhigto oo isla waqtigii loo baahnaa ayuu qabtaa lambarka 3 ka qayb qaadashada waxbarashada in badan waxay tala siiyaan ardayda oo inta badan iskama weynaysiiyaan ardayda saaxiibadooda ka qayb qaadashada waxbarashada manhajka dheeriga ah waxay ka caawin kartaa ardayga inuu helo kalsooni kaasi oo hagaajin kara guusha waxbarashada iskuulada badankood waxay bixiyaan waxqabadyo ka baxsan manhajka ardayga ka qayb qaadan kara
ardayga ugu wanaagsani waxa ay ku lug leeyihiin howlaha qaar, haddii ay tahay ciyaaraha fudud, beeralayda, mustaqbalka ee maaraynta ama golaha ardayga. Dhaqdhaqaaqyadani waxay bixiyaan fursado waxbarasho oo badan oo ah fasal caadi ah oo aan si fudud u qaban karin. Howlahani waxay sidoo kale bixiyaan fursado ay ku qaataan doorka hogaaminta, waxayna inta badan baraan dadka inay wada shaqeeyaan si koox ah ama guuto ah. Waayahay, lambarka 4 waa hogaamiyayaal. Ardayga wanaagsan mar waliba wuxuu jecel yahay inuu noqdo hogaamiye. Macallimiintu waxay jecel yihiin ardayga wanaagsan ee hogaamiyaasha dabiiciga ah ee fasalkooda. Fasalada oo dhan waxay leeyihiin shakhsiyaad u gaar ah oo inta badan fasaladaasi hogaamiyayaal fiican u ah. Waa fasalo wanaagsan. Sidoo kale, fasalada oo dhan waxay leeyihiin shakhsiyado gaar ah oo inta badan fasaladaasi oo leh hogaamiyayaal fiican. Waa fasalo wanaagsan. Haddii aad aragtid arday inuu fasalkaasi wanaagsan yahay, waxaa wanaagsan hogaamiyihiisa. Sidoo kale, fasaladaas oo aan lahayn hoggaan kooxeed waxay noqon karaan kuwa ugu adag ee la xakameeyo. Xirfadaha hoggaanka ayaa badanaa ka dhalanaya. Waxaa jira kuwa haysta iyo kuwa aan haysan. Sidoo kale, waa xirfad horumarineed waqti ka mid ah asxaabtaada. Kalsoonida waa qayb muhiim ah ee hogaaminta. Haddii ardayda iskuulkaaga aysan ku aamini karin, markaa ma noqon kartid hogaamiye wanaagsan. Haddii aad tahay hogaamiye ka mid ah asxaabtaada, waxaad mas'uul ka tahay inaad noqoto hogaamiye wanaagsan oo tusaale lagu daydo iskuulka. Lambarka 5, ardayda ayay dhiirigeliyaan. Dhiirigelintu waxay ku timaadaa meelo badan. Ardayda ugu fiican ayaa kuwa dhiirigeliya inay guuleystaan. Sidoo kale, ardayda aan haysan dhiirigelinta waa kuwa ugu dhibta badan inay gaaraan. Inta badan waa dhibaato, waxayna ugu dambeyntii ka tagaan dugsiga ama iskuulka. Ardayda dhiirigeliya inay wax bartaan way fududahay in la baro. Waxay doonayaan inay dugsiga joogaan, inay wax bartaan, oo ay rabaan inay ku guuleystaan noloshooda. Dhiirigelinta micnaheedu waa waxyaabo kala gedisan oo aan wax dhiirigelin ah. Macallimiin wanaagsan ayaa ku xisaabtami doonta sida loo kobcin karo ardayda badankood. Laakiin ardayda ay isku kalsoon yihiin way fududahay in la kobciyo. Lambarka 6 waxay yihiin dhibaatooyin xalliya. Mar waliba dhibaato iskuulka ama galaaska kusoo korodho way xalliyaan. Xirfad la'aantu waxay ka maqan tahay wax badan awoodda loo leeyahay inay noqoto mid dhibaato ah. Marka la eego heerka Common Core State Standards la yiraahdo oo u baahan ardayda inay u noqdaan kuwa ku habboon xallinta dhibaatada. Tani waa xirfad khatar ah oo ay tahay in uu noqdo kuwa ku habboon xallinta dhibaatada. Tani waa xirfad khatar ah oo ay tahay in dugsiyadu ay si ballaaran ugu shaqeeyaan horumarinta. Ardayda haysta xirfadaha xallinta dhibaatooyinka dhabta ah way yar yihiin, iyo inta u dhaxaysa jiilka inta badan sababta oo helitaanka waxay u baahan yihiin macluumaad. Ardayga kuwaasi oo haysta awoodda xallinta dhibaatooyinka dhabta ah waa darka naadirka ee macallimiintu jecel yihiin. Waxaa loo isticmaali karaa inay noqdaan ilaha si loo caawiyo ardayda kale inay noqdaan kuwa xalliyo dhibaatooyinka. Lambarka 7 waxay qabtaan fursadaha oo fursadoodu mar waliba ma dayacaan. Mid ka mid ah fursadaha ugu weyn ee yaalla waddankeena waa in ilmo kasta leeyahay waxbarasho bilaash oo dowladda ay bixiso. Nasiib darro, qof waliba kuma filno fursadahaasi. Waa run in arday kasta waajib ay tahay inuu dugsiga tago muddo waqti ah, laakiin taasi micnaheedu ma ahan
in arday kasta helo fursadahaasi oo uu kobciyo kartidooda barashada. Fursadaha lagu barayo ama aan lagu qiimeynin waddankeena. Waalidiinta qaarkood ma arkaan qiimaha waxbarashada oo taas laga gudbayo carruurtooda. Taasi oo lagu gudbiyo carruurtooda. Waa xaqiiqo murug leh oo inta badani laga faaloonayo dhaqdhaqaaqa dib u habeynta dugsiyada. Ardayda ugu fiicani waxay ka faa'iidaystaan fursadaha ay helaan oo ay ku qiimeeyaan waxbarashada ay heleen. Lambarka 8 waxay yihiin citizen. Macallimiintu waxay kuu sheegi doonaan in fasalada buuxa ee ardayda raacaya qawaaniinta iyo nidaamka ay leeyihiin fursadaha wanaagsan in ay u balaadhiyaan kartidooda waxbarashada. Ardayda si fiican u dhameeyay waxay u badan yihiin inay bartaan wax badan kuwa dhigooda ee noqda tirakoobyada edebta ardayga. Waxaa jira dad fara badan oo akadeemiyeed ah kuwaasi oo ah dhibaatooyin edbin ah. Xaqiiqdii ardaydaasi waxay badanaa ka yihiin niyad jabka ugu dambeeya ee macallimiinta, sababtoo ah waxay u badan yihiin inay marnaba xoojin doonin sirdoonkooda haddii ay doortaan inay beddelaan dhaqankooda. Ardayda si fiican u dhaqma fasalka waxaa macquul ay tahay inay macallimiintu wax badan ay ka qabtaan, xitaa haddii ay dhibaato ka haysato xagga tacliinta. Qofna ma doonayo inuu la shaqeeyo ardayga si joogto ah oo u keeno dhibaatooyin. Laakiin macallimiintu waxay isugu jiri doonaan inay u guuraan buuraha ardaydana ixtiraam leh oo raacaan xeerka. Qodobka 9 waxay leeyihiin nidaam taageereed ay leeyihiin. Nasiib darro, tayadani waa mid ka mid ah shakhsiyaadka badanaa leh xakameyn yar. Adigu ma xakameyn kartid qofka waalidka ama mas'uulkaada. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado inay jiraan dad badan oo ku guuleysta oo aan haysan nidaam taageero oo koraya. Waa wax aad ku guuleysan kartid, laakiin waxay kaa dhigaysaa mid aad u sahlan haddii aad leedahay nidaam taageerid caafimaad. Kuwani waa dad leh dareenka ugu wanaagsan ee maskaxda lagu hayo. Waxay kugu riixayaan inay ku guuleystaan soo jeedinta talooyinka iyo hagaha oo go'aanadooda u hoggaansamaan intaad naftaada oo dhan u hoggaansamaan naftooda oo dhan. Iskuulka waxay ka qayb galaan shirarka waalidka, macallimiinta. Hubi in shaqadaada guriga loo qabto. Laga rabo in aad haysato buundooyin fiican. Guud ahaan ku dhiirigelinaya inaad samayso oo aad gaarto hadafyada waxbarashada. Waxay kugu jiraan waqtiyada dhibaatada, waxayna kugu kalsoon yihiin waqtiyada aad ku guuleysanayso. Lahaanshaha nidaam taageero oo weyn ayaa kaa dhigi karta ama kuu jebin karta adiga ardayga ahaan, laakiin xaqiiqdii waxay siinaysaa faa'iido weyn. Lambarka 10 ugu dambeeya waa aaminaada. Intaad ku kalsoonaato waa tayada kaa dhigi doonta macallimiintaada oo kaliya, laakiin sidoo kale fasalkaaga. Qofna looma baahno in uu si u dhow yahay dadka aanu ugu dambeyn kalsoonaan karin. Macallimiintu waxay jecel yihiin ardayda iyo fasalka ay ku kalsoon yihiin, sababtoo ah waxay siin karaan xorriyado badanaa bixiya fursado waxbarasho oo aan la sii karin si kale. Tusaale ahaan, haddii macallinku uu fursad u helay inuu qaato koox arday ah si uu ugu dhageysto hadalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, macallinku wuxuu fursad u heli karaa inuu hoos u dhigo haddii fasalka aan la aamini karin. Ardayda wanaagsani waxay qiimeeyaan fursada ay ku caddeeyaan in ay yihiin kuwa isku kalsoon. Mawduuceena maanta intaan ayaan kusoo afmeeraynaa. Waa qaybtii 1 ee mawduucaani. Waxaa jiri doonta qayb 2 oo aan uga hadli doono shuruudaha laga rabo ardayga doonayo inuu noqdo arday wanaagsan.
intaan ayaan ku saafmeerayaa mawduucayga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.